Aqdi dhalinyarada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah waxay u baahan yihiin inay bartaan xirfadaha ama skillska. Xirfaduhu guud ahaan waxay kala baxayaan laba qaybood. Kuwa loo yaqaan digital skills waa xirfadahan casriga ah ama xirfadahan maanta modernka ee dunida laga shaqeeyo oo internetka iyo online ku shaqeeya. Iyo xirfadahan loo yaqaan technical skills oo loo yaqaan xirfadahan hard skills loo yaqaano oo farsamada gacanta xirfadaha gacanta laga qabto. Guud ahaan digital skills iyo technical skills waa laba xirfadood oo aad muhiim ugu ah goobaha shaqada iyo goobaha ganacsiga. Maanta wayna kala duwan yihiin isticmaalka loo isticmaalayo iyo qaabka loo adeegsanayo xirfadaha digitalka ah iyo xirfadaha technicalka ah. Haddii aan ku hormaro xirfadaha digitalka ama digital skills waa xirfado ku saabsan isticmaalka ama adeegsiga kombiyuutarka iyo aaladda internetka iyo isticmaalka software-rada ama programyada kala duwan ee ku jira kombiyuutarka. Haddii maanta digital skillska dhalinyarada ay maanta bartaan oo maanta dhalinyarada xirfadaha waddanka ay fahmaan u baahan yahay. Sababta digital skillska xirfadaha aasaasiga ee basic marka adigu xooga saari karo waxa kamid ah programmingska, Word-ki, Excel-ki iyo PowerPoint-ki. xirfadahan operation systemka nidaamka hawlgalka kombiyuutarada qaabka uu shaqeeyo. xirfadahan social media marketingka sida Facebookka, TikTokka, YouTubeka. xirfadahan graphic designka sida Photoshopka iyo Canva iyo Adobe Illustratorka iyo Adobe InDesignka iyo Adobe After Effects iyo xirfadahan video editingka sida CapCutka iyo Camtasia iyo Premiere Pro-ga. xirfadahan iyaguna ku shaqeeya online marketingka haddii product la gadi lahaa iyo haddii service la gadi lahaa. Dhammaan xirfadahaasi waa digital skills. waa xirfado muhiim oo u baahan ardaygu ama qofku inuu waqti geliyo isla markaana uu barto si uu noloshiisa ugu shaqeeyo. Muxuu ka faa'iidayaa xirfadaha digitalka qofku? Waxyaabaha uu ka faa'iidayo waxaan isleeyahay number 1 inuu qofkaasi noqdo freelancer. Waxaa loola jeedaa qofku inuu gurigiisa isagoo joogo u shaqeyn karo isagoo aan lug gelin ama aan socdaalin ama isla markaana u baahnayn meel kale inuu aado. Qaab freelancer ku shaqeyn karo, inuu qaab online ku shaqeyn karo, inuu affiliate marketing wax loo yaqaano suuqa gain sameyn karo, online ku shaqeyn karo, in isaga laftigiisa self employment uu sameyn karo, uu shaqaaleysiin sameyn karo. Marka xirfadaha digitalka waa xirfadaha maanta dunida ay u guureyso, waa xirfadaha maanta muhiimka ah. Haddii ay noqon lahayn xitaa kuwa lacagta lagu sameeyo sida cryptocurrency-ga iyo xirfadahan muhiimka ah ee maanta dhaqaalaha lagu sameeyo forex trading iyo waxyaabahaas waa xirfadaha dhalinyarada u baahan yihiin, waddankuna u baahan yahay baahina uu qabo si dhalinyaradu mustaqbalkooda uu hagaagsanaado. Waxaan eegi doonaa waa maxay technical skills. Technical skills waa xirfadaha loo yaqaano xirfadaha farsamada gacanta ama xirfadaha gacanta laga qabanayo. Waa xirfado ku saabsan farsamada gacanta ama qofku inuu shaqo toos u aado ama goob uu ka shaqeeyo isagoo qabanayo shaqooyinkii practical work ahaa organizationka ama goobaha ganacsiga marketingka ka shaqeyn lahaa ama goobaha kale oo dhan. xirfadahan kan way badan yihiin. Technicalku waa xirfado aad iyo aad u muhiim ah. waa xirfado maanta dunidu u baahan tahay. xirfadaha waxaa ka mid ah xirfadaha computer repairingka, xirfadaha dayactirka kombiyuutarada noocyadooda kala duwan, xirfadaha solar systemka ama solar system installation, xirfadaha rakibidda solarka ee cadceedda ku shaqeeya, xirfadaha loo yaqaan electrical wiringka, xirfadaha debgelinta guryaha iyo wixii la xiriira, xirfadaha loo yaqaan mechanical work waa xirfadaha mashiinada iyo la xiriira haddii ilaahay ku leeyahay technicalka la xiriira sababta gacanta laga qabanayo, xirfadaha mobile repairingka laftigooda dayactirka mobilada noocyada smartphone-ka ay kala duwan haddii la dayactiri lahaa, xirfadaha cooling systemka qaboojiyeyaasha iyo air conditionerska iyo mukayfiyada iyo xirfadaha ugu baahan maanta loo baahan yahay. dhalinyaradu maanta haddii baran lahaayeen technical skillska iyo digital skillska xirfadahaas labada xirfadood la isku daray aad bay muhiim yihiin qof dhalinyarada ka imaado. digital skills waa xirfadaha ku shaqeeya online-ka haddii networking-ka noqon lahayd, graphic design-ka noqon lahayd, e-commerce-ka noqon lahayd, haddii ay ku leeyahay computerized accounting-ka noqon lahayd. waxyaabahaas oo dhan sida QuickBook iyo Odoo iyo Excel-ki data analysis-ka waxyaabo loo baahan yahay oo digital skills loo yaqaano. technical skills-kuna waa loo baahan yahay. Marka dhalinyarada talada aan siinaya waxay tahay inay labadaba isku bartaan. technical skills-kana wax ka bartaan, dhowr xirfadood ka bartaan, digital skills-kana ka bartaan. haddii aad leedmo YouTube-kan iyo technology waxa ku jira qaybo ka mid ah xirfadaha loo yaqaan digital skillska xirfadaha ugu muhiimsan. YouTube-kan waad ka baran kartaa. Subscribe to like to saara. aad iyo aad u mahadsantihiin. Thank you.